tahay guddiga sida ay u soo dadaaleen waa uga mahadcelinayaa. Su'aasha aan qabo waxay tahay doorasho qof iyo cod oo Soomaali oo dhan inay ka qayb gasho ayaa qorshaha 2020 ayaa degsan. Soomaalina dibadda iyo gudaha ayay ku nooshahay. qorshahana sida meelaha qaar warbixintana lagu siinaayay waxaa la yiri baarlamaanka wuxuu noqonayaa 275 nidaamkii noogu dhisnaa waa wada naqaan 4.5 31 beelaha laga hadal badan yahay iyo min 61 beelaha oo ayaga qaylada dheer. hadda Soomaaliya dibadda iyo gudaha ayay ku kala nooshahay. xaqna wuxuu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasto asiga uu joogo inuu codkiisa u baxsado. qorshaha ma idinkugu jiraa shalay nin beelaha waaweyn tookadan aan isticmaalo Soomaaliya markuu joogay uu ka tirsanaa ayaa dibadda markuu tagay beelaha yaryarka ku biiray. ninkaas haddii xaq uu leeyahay inuu ka codayo meesha uu joogo matii markuu Soomaaliya uu joogay beelaha waaweyn uu ka tirsanaa baad ku daraysaan mise markuu dibadda joogo beelaha yaryariiska ku daraysaan? ilaan waa la isku wareersan yahay meeshan. waxyaabo fara badan oo isdhaafsan ayaa doorashada soo bixi doona maadaama dalkan mucjiso ay ka dhacday. qaabka marka anaga haddana la leeyahay one man one vote waxaa la rabaa ninkii cod ama xisbigii tirada badan uu helo inuu kuraasta fara badan isaga uu qaato. meeshan waxaad tirahdeen 275 la dhaafi maayo. haddii adiga aad 100% kuraasta meesha taalla xisbiga uu helo reerka adiga aad ka tirsan tahay inta uu leeyahay leedahay haddana. marka nidaamkan xagee looga dhaqmi doonaa maxaase u bixin doontaan tii hore doorasho dad banay ahayd tanna doorashadan ayadana magaceeda maxaad ugu talagashay inaad u bixisaan. wassalaamu calaykum.